dagaalka siduu u dhacay waxaas intaanan gelin waxaan rabaa inaan ogaado waxaan ku arkay websiteyada oo weliba websitekiina uu ka mid yahay inay ku qoran tahay in sababta ay ka mid tahay qofkeen xildhibaankeeda aniga ahay iyo dadka shacabka aan matala inay ayaga ka dambeeyaan arrintan waan jeclaan lahaa qoraalkaas meesha aad ka keenteen iyo referensiga inaad horta aad dadweynaha la wadaagtaan aadaan u jeclaan lahaa maxaa yeelay arrin aanan sal iyo raad midna lahayn ayay ahayd asalkeeda. shukran waa mahadsantahay dad ku sugan magaalada beledweyne noo sheegay bal adiga sidee wax u dhaceen haddaanay sida sax ahayn dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad fahamsiiso waxa ka dhacay magaalada iyo xiriirka ay la leeyihiin kuraastan sideed gaar ahaan labada kursi beeshaadu ay leedahay dib loo dhigay. bismillah waa mahadsantahay Xuseen waa usoo noqon doonaa su-aashayda hore qodobka hore intaan ka warqabno Xuseenow madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka habeen hore nala kulmeen dhammaan musharaxiinta 11 kursi maahan 8 keliya balaa 3 kalente 11 kursi oo beledweyne ku dhinaaday madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka way nagala hadleen ay si bareer loogu sheegay in kuraastaasi lagu tartamayo annagu intaasaan ogeyn saakayna waxaa la xalay la soo shaaciyay 3 kursi oo labadan kursi hadda sida gooniya ay weysay ka mid yihiin saakay waxaan ku waagbarisannay madaxweynaha ku-xigeenka noo yeeray oo dhammaan musharaxiinta la kulmay oo yidhaah la yimaado waa garta shirki intaan ku jirnaana maqalnay markuu dhammaaday shirki gabagabo uma ahan taqriiban waxaan maqalnay xabado aad laysu dhaafsanayo oo albaabka madaxtooyada annagaan ku jirnay albaabkeeda ah waa garta garan karin intaan meesha ku jirnay tension badanaa dhacay argagax badanaa jiray xabada aad u culsaa isdhaafsaday maxaa dhintay maxaa dhaawacayaa dhibka geystay maxay tahay sababta haba yaraatee cid wax war iska haysay ma jirin inta cajiibka marka waxay tahay Xuseen intaan annaga ka warqabno waa intaas haba yaraatee wax sabab ah oo aniga iyo dadka aan matala ku kalifi karto inay hub qaataan oo ay wax laayaan ama ay dagaal noocaasi intaas leeg ay u soo baxaan marka wadana ma aha mana naqaano waa maasanta marka xildhibaan ma jirtaa in murashaxiintiinan magaalada beledweyne ku sugan mid walba uu wata ciidan badan oo la galay xeradii lama galay iyo madaxtooyadii xiisad ay jirto kuraasi qaar in la xirayo qaar in la diidan yahay in la xiro dood noocaas oo madaxweyne ku-xigeenka iyo murashaxiinta u dhaxaysa ma jirto Xuseen Soomaaliya guud ahaan Hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne kuraasta lagu qabtay 12 marka la reebo 12 qaabkaas loo maamulay horta qaab fiican aanan ahayn dalkoo dhan qaabkii loo maamulay bay ayagan u raaceen laakiin annaga 12 kursi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayuu isla fadhiyo ayay mar labaad isu dib mareen bay dhaheen kuraastan waa lagu tartamayaa marka aniga ma garan karo sidnada iyo khilaafka meel kale inta ka iman karto hadda aad si gooni ama ii weydiisay ama la tuhmi karo maanta maxaa ka wada hadashay maanta waxaan ka wada hadalnay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu noo sheegay tension badan inuu magaalada ka jiro loona baahan yahay in la dejiyo gobolka iyo guud ahaan doorashaduna ay si nabad u dhacdo intaasoo nagala hadlay wuxuuna ballan qaaday si uu habeen hore noola hadlay inay doorashada si smoothly ah oo nabadan u dhici doonto xaggoodana ay ka iman doonto si nabad ay ugu dhici doonto ay maamul hufanna ka samayn doonaan ciidamadan maxaa weeye marka xildhibaan aad wadataan ee la leeyahay murashaxiintii magaaladii ciidan bay ka dhigeen gaar ahaan madaxtooyadii aad la gelaysaan magaalada way hubaysan tahay maaha keliya musharaxiintuna madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayagoo fadhiyaa yidhi in ciidamadooda ay wataan oo waardiyahooda ah wixii waardiyahooda ku saabsan xaqay u leeyihiin dalil musharaxa oo ciidan waardiye ah magaalada ka soo gelaya oo soo gelaya inuu watana sharci iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba way ogolaadeen laakiin ma jirto haba yaraatee ciidan ama musharaxiin waardiyeyn hayo technica wato hub culus wato madaxtooye gale aniga ma aan arag madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka nooma sheegin markii nala hadlaayeen waaya marka xalay waa tii la shaaciyay guddigiisa oo xuli lahaa ergada 3 kursi oo midka adiga aad dadka ku matalaysa 5 sano la soo dhaafo ku jiro maantana waxaa soo baxay in dib loo dhigay maxaa sababay maamulkay tahay in la weydiiyo uuna noo sheegay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu yidhi kuraastii la gudbiyey labada aheedna waa la soo celiyey waxayna la mid yihiin kuraasta kalente ee dhiman 100% waa lagu tartamaya kursi xirun anaga xiriirana ma jiro intuu anaga noo sheegay intaas bilmunaasaba aniga iyo shacabka matalaba waxay rabeen baaba hadda meesha laga sheegay wax lid ku ah
wax dhibaato ku ah meesha ma laga sheegin marka sababka lisi karta Xuseen oo ma jirin inay hub qaataan ama arigan ka dambeeyo oo aan dagaalkaadna ma jirin waa maasanta maxaa weeye baaqa ama fariinta ugu dambayso aad leedahay waa muhiim in la wadaagto dadka Soomaaliyeed waxaan ka rabaa inaan u sheego annaga wixii naloo sheegaan sheegi karnaa oo ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay dhahaan doorasho rasmi ah meesha ka dhacayso intaasaan rabnaa inaan u sheegno taasaan ka sugaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inoo sameeyaan hadduu aleedmo annaga dadka qalbigooda ma geli karno yani madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay sheegeen inaan dhaafno warkooda qalbigooda ma geli karno taasaan ka sugaynaa dadweynaha intaasaan la socodsiinaynaa u doono Soomaali Suudaneys Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaneys waa badqabka bulshadeena